munaasabadan ballaaran ee lagu soo bandhigayay buu koobsanaya taariikhdii iyo gabayadii Allah u naxariistay abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed ee Xaaji Muuse Galaal ahaana aabihii af Soomaaliga qoray ayaa ahayd mid hanaankeeda qabanqaabo si weyn loo soo agaasimay isla markaana kulmisay wajiyo tiro badan ayaa ka qabsoontay Hotel Green Plaza ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ahna hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani gudoomiyaha xisbiga UCUD iyo sidoo kale musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi UCUD abwaano suugaanyahano salaadiin uqaal dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa madashayba furay wasiiru dawlaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Maxamuud Jaamac Aadan Galaal isagoo si qiimo leh u sharaxay taariikhdii iyo mahadooyinkii maamuuska lahaa ee Allah u naxariistay abwaan Xaaji Muuse Galaal waxa nasiib wanaag sanadkii 1989 aanu si kedisa ah isu baranay ninkii la oran jiray Professor B.W. Androwski iyo gabadhiisa Sheila Weeks ninkaasi jubdhiiba markaan la kulmay waxaan arkay nin Muuse aqoon badan u leh oo waliba jecel inuu ahaa had iyo goor inuu Muuse sheekooyinkii iyo dhacdooyinkii dhexmaray ka sheekeeyo iyo jeclaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac ayaa sheegay inuu door muhiim ah ka qaatay buuggan loogu magac daray Malkadii Muuse Galaal waristiisa iyo dabagalkiisa iyo hawshiisa ilaahay ha ka tusaayo mariyay maxamed xilkaale isagaana leh magaciisa isagaale anigu waan daba taagnaayo waan ku qaylinayay markaan xogaa kala maqnaa laba hal ku maraya baan ku lahaa qoraagii buuggan Malkadii Muuse Galaal ayaa isaguna ka waramay sababihii ku kalifay inuu buugan qoro isagoo dadkana ku baraarujiyay in la kaydiyo taariikhii dadkii doorka ku lahaa darajadan aynu maanta joogno in yar idin milcisiinaya ajaladihiisa ayaa aad u dhageysateen baan maleynaya oo luuqdiisii macaanayda waa dhageysateen baan maleynaya gabayadii faraha badnaa ee uu duubay dadkii murtida lahaa uu ka duubay waxaan ku celinayaa halganka oo u soo maray ummadda tan hantida ay leedahay hadday dhaqan tahay hadday gabay tahay hadday kaydin tahay hadday xidigis tahay hadday wixii ay ummadda tani lahayd ee ka dhaxeeya halka u soo maray Dr. Suadna Aadan Ismaaciil ayaa iyaduna dul istaagtay shakhsiyaddii abwaan Muuse Galaal waxaanay tidhi horta af Soomaaligeena sharaftu u yeelay baan horta ixtiraamka ugu hayaa wuxuu ahaa qof dhaqankeena jecel abwaan Yuusuf Shaacir iyo abwaan Cabdi Good oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ku baraarujiyay in taariikhda abwaan Muuse Galaal kor loo qaado maadaama uu door muhiim ah ka soo qaatay kobcinta iyo hirgelinta afkeena hooyo baashigu gabayga tiriyay markii xabaasha Muuse la joogay isagoo xamaasadaysan oo qeeraysan ayuu gabayga tiriyay tuduc baan uga dan leeyahay wuxuu yiri cali sugulle geeridu xaq weeye oo hore loo gudoonsaday gabagabadiina qaar kamid ah ehelada abwaan Xaaji Muuse Galaal ayaa xukuumadda ka codsaday in goobo muhiim ah loogu magac daro laguna maamuuso abwaanka iyadoo munaasabaduna ku soo dhamaatay jawi wanaagsan iyo mid farxadeed Khalid Cabdi Maxamed Khalid Bulshaawi Space Channel TV Hargeysa